u horseeday in hab qoraalkoodu noqdo mid aad u liita oo arday badani isticmaaliyeen teknolojiyadan baa waxaa sabab u noqotay inayba isticmaali waayaan qalinkii even xitaa macallinkii oo samuuradii casharkii ku sharaxay ay mararka qaar waxa ay daneeyaan ama ay ka door bidaan halkii ay ka qori lahaayeen. daawadayaal iminkana waxaynu eegi doonaa dhanka iyo falanqaynta saacadda warka ee MMTV waxa igula sugan stuudiyaha telefishinka MMTV macallin Cabdiraxmaan Sameeco oo ah bara sare oo dugsiyada sare ee Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wax ka dhiga. macallin haddii aynu eegno iminka sanadkan 37,000 oo arday in kor u dhaafaysa ayaa galaysa oo u fadhiisanaysa dugsiyada hoose dhexe ee fasalka 8aad iyo waliba dugsiga sare ee 4aad. guud ahaanba bal caqabadaha ay ka siman yihiin maxay tahay? caqabadaha ay ka siman yihiin riboodka ama warbixinta sanadlaha ee uu soo saaray xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland waxa ugu badan ee ardaydu ay caqabad kala kulmaan markay imtixaanka galayaan waa 4 qodob. afarta qodob waxa ka ka waqtiga, number 2 waxa ka qaabka ay su'aalaha uga jawaabayaan iyagoo raacaya sidii la yiri uga jawaaba. number 3 waxa ka qishka ama khiyaanada ay ardayda qaar isku daydo. ka afraadna wuxuu noqonayaa hab qoraalka iyo isticmaalka luqadda Ingiriiska ee ay ku jawaabayaan ama ay ku bixinayaan jawaabaha su'aalaha. inta badan imanka waxa secondary-ga lagu wada dhigtaa oo dugsiyada sare lagu dhigtaa waa luqadda Ingiriisiga. arday badan oo iyaga laftirkoodu la daala dhacay aad arkaysaa. bal arintaasi sanadadii ugu dambeeyay xal noociyay laga gaaray. horta waxa weeyaan luqadda ay ku baxdo dugsiga sare ama lagu dhigtaa waa luqadda Ingiriiska. arday aad u badanna handwriting-ka iyo isticmaalka luqadda Ingiriiska waliba maadooyinka social-ka oo kale sida history-ga ardayda caqabadaha aad u badan bay kala kulmaan waayo ardaygii oo su'aashii la weydiiyay jawaabteedii qaab fiican u garanaya xog fiicanna ka haya ayaa wuxuu la kulmayaa ama uu awoodi waayay inuu jawaabtii af Soomaaliga uu ka hayay inuu English rogo. so that waxa xal noqon kara ama ay munaasib tahay ardaydu inta aanay gelin ama aanay imanin fasalka afraad ee form 4 inay aad ugu soo dadaalaan sidii ay u baran lahaayeen qaabkii ay luqadda Ingiriiska waxa weeyaan jawaabo fiican ugu qori lahaayeen. way hadaba sanadadii ugu dambeeyay markaynu eegayno dhanka hab qoraalka oo kale waxa dhacda horta social media markaan ka tagno teknolojiyadu waxay leedahay positive impact iyo negative impact. saameynta togan iyo mid taban. saameynta taban ee ay leedahay waxa kamid ah inay ardaydii u horseeday in hab qoraalkoodu noqdo mid aad u liita oo arday badani isticmaaliyeen teknolojiyadan baa waxa sabab u noqotay inayba isticmaali waayaan qalinkii even xitaa macallinkii oo samuuradii casharkii ku sharaxay ay mararka qaar waxa ay daneeyaan ama ay ka door bidaan halkii ay ka qori lahaayeen hab qoraalkana ay ku baran lahaayeen ama ay noqon lahaayeen dad qoraalkoodu aad u sareeyo inay sawiraan oo ay casharkii samuuradii sawiraan u isticmaalaan. way marka taa laftarkeeda waxa meesha ka baxaysa hab qoraalkii ardayda. way macallin imanka markaynu eegno dhanka macallimiintu waad ogtahay oo macallinkii isagoo intaas oo sanadood wax soo dhigayay ardayda ayuu haddana qayb ka noqon karaa inuu xilliyada imtixaanaadka lagu jiro oo qishsiya ardaydii oo u diyaariyaa su'aalo iyo jawaabo isla mar ahaantaana baraha bulshada ay ku wadaagaan gaar ahaan aaladda WhatsApp. taa laftarkeedu maxay tahay maanay ku ahayn ardayda laftarkoodii niyad jab? horta aad iyo aad baa u mahadsan tahay. waana mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ardaydu ay la kulmaan xilliyada imtixaanada galayaan inay helaan ama ay isku dayaan inay wax qiyaameeyaan. awalan warbixinta ugu weyn ee xafiiska imtixaanaadku sanad walba uu u gudbiyo macallimiinta, hawlwadeennada, maamulada iyo ardaydaba waxaa ku jirta inaanay ardaydu isku dayin qish. haddii ay isku dayaanna in la qaban karo tusaalaan oo kale imika laba hab baa loo qaban karaa haddii ay ardaydu is yiraahdaan wax qiyaameeya. mid waxay noqon kartaa marka galaaska gudihiisa lagu jiro waxa mas'uulka ah oo qabanaya wixii isku day khiyaama ah ee ardaydu ku kaco invigilator-ka ama ilaaliyaha imtixaanka. mar labaadka sidoo kale waxa la garan karaa jurin markin xilliga sixitaanka la saxayo ayaa haddii ay jawaabuhu isku mid noqdaan amaba dee waxa weeyaan adigu xilliyadaas oo kale waa la dareemi karaa galaaska ama cidda si kale ha loo caawiyo internal ama external caawimada hooga timaado. marka waxa aad iyo aad muhiim u ah inaanay ardayda iyo macallimiinta iyo cid kastiba aanay qayb ka noqonin inay ardayda ku saacidiyaan ama ay ku dhiirigeliyaan inay wax qiyaamaha sameeyaan. macallimiintaas waxa weeyaan hore waa loogu digay iminkana waxaan rajaynayaa inay digniinahaas iyo wacyigooda oo in badan lagu soo celceliyo ama lagu dhiirigeliyay inaanay qayb ka noqonin inay sanadadii dambe ay yaraatay ama sidii markii hore ahayd ka koobnaatay baa ayaa dhacda. sanadkan ka horreeyay waxba la arkay ardayda oo iyagoo fasalkii ku dhex jira iska soo duubaya aaladda loo yaqaan TikTok. taayada maxaa laga yeelay ee aad wax warbixin ka haysaa? wallahi horta taasi waxa weeyaan kulay
waa aafo qaran qarankuna waxa hanti u ah waa ardaydan ardaydu waa hantida kaliya ee qarankan uu leeyahay soo daad imtixaanka maaha ardayda inuu aragto wax lagu ciqaabayo ama iyaga la doonayo in lagu argagax geliyo ee waa inay u arkaan fursad iyo chance ay ku soo bandhigayaan wixii ay dhiganayeen muddada aadka u badan ee 12 sano ah soo daad ardayda waxaan oran lahaa kulley waa wacyigooda aad u hooseeya waa inay qayb ka noqdaan maamulka iyo macallimiintu sidii ay ardayda ugu dhiirigelin lahaayeen waxaan inuu yahay mustaqbalkooda oo aanay wax xumaana mustaqbalkooda hadhow toole ka turjumaya aanay ku kicin arrinkaasina waa arrin aan fiicnayn marka waxa loo baahan yahay in ardayda lagu dhiirigeliyo inaana dhaqamada noocaas samaynin kana digtoonaadaan oo wax iyaga naftooda u fiican way macallin ugu dambeyntii markaynu eegayno inagoo ku salaynayna gudaha magaalada Hargeysa macallimiinta amaba iskuulada gaarka loo leeyahay iyo waliba iskuulada dawladda oo kale isku si uma helaan qishka oo kale maxaa markaasi arrintaasi sababay ciliid loo saaraa ardayda isla mar ahaantaana maadaama ay hal imtixaan wada galayaan horta private iyo dawladda labadaba waxa mas'uul ka ah dawladda waxaana xaq u leeyahay inay qiimeyso dawladda ardayduna way u sameeyeen dawladda adiga laftarka wax warama ka haysayo inay ku kala duwan yihiin dhanka qishka oo kale waxa weeyaan may halkaasi waxa jirta horta galaaska marka la ilaalinayo iskuulka lagu gelayo waxa ku wada gelaya dawliya private macallinka vigilatorka ilaalinayaana dawliya private isku soo buu ilaalinaya maadaama ay labaduba yihiin arday muwaadiniin oo dugsiyada hoose dhaxo oo kale fasalada sideedad sax arrinka wallahi horta su'aasha imika aad weydiisay waxaan u fahmay inay tahay ma ku kala duwan yihiin qaabka ay isku day khiyaamada u sameynayaan ardayda dawladda iyo private-adu haddii ay su'aasha sidaa tahay waxaan u malaynayaa kulley marka ardaydu ay isleedahay khiyaamo sameeya ama qish waxa qayb ka noqon kara invigilatorka ama ilaaliyaha galaaska ilaalinaya marka qofka ilaalinaya galaaskaasi isagu uma eegayo kanima dawladba ama private ba labadaba isaga waxa waajib ku ah waajibaadka saaran uu yahay inuu galaaska gudihiisa ka kantaroolo wixii khiyaamo ee ka dhacaya way macallin aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal guud ahaan baa waxaan ku soo afmeeri doonaa intaasi falaqaynta saacadda warka habeenkan caawa ah oo maanta ay bilaameen imtixaanaadka dugsiyada sare iyo waliba sidoo kale dugsiyada hoose dhexe waxaana igula sugnaa stuudiga telefishinka MMTV Cabdiraxmaan Sameeco oo ah bara sare aad iyo aad baad mahadsantahay macallin